shantii bishii Juun ayaa wadamada Sacuudiga, Bahrain, Imaaraadka Carabta iyo Masar ay xiriirka u jareen wadanka Qatar iyagoo ku eedeeyay inuu taageero dhaqaaqyada Islaamiga ee ka jira qaar ka mid ah wadamada dunida. Wadamadan ayaa ku soo rogay Qatar xayiraad dhinaca badda, bariga, cirka iyo inay jaraan dhammaan cilaaqaadka ay la lahaayeen haddii ay tahay siyaasadda amaba ganacsiga. Qatar dhinaceeda waa ay beenisay eedeynta loo soo jeediyay ku tilmaantay mid aan cadeymo loo haynin. Arrintaasi ayaa waxay sababtay in xulufada Sacuudiga iyo Qatar ay ku hirdamaan sidii ay u kala jiidan lahaayeen taageerada wadamada ku jira jaamacadda Carabta iyo kuwa ka baxsanba. 7 bishii Juun ayaa dawladda federaalka Soomaaliya soo saartay mowqifkeeda la xiriidha xiisadda Khaliijka waxaana iska taagtay meel dhexdhexaad ah iyadoo dawladda Soomaaliya ku baaqday in arrinta wada hadal lagu dhameeyo. Dalka Djibouti ayaa isna sheegay inuu hoos u dhigay cilaaqaadkii la lahaa wadanka Qatar taasoo sababtay in Qatar ay ciidamadeeda kala baxdo soodinta ay ku muransan yihiin Djibouti iyo Eritrea. 10 bishii Juun ayaa shir ay isugu yimaadeen golaha wasiirada Somaliland waxa lagu shaaciyay in Somaliland ay barbar taagan tahay wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ee xiriirka u jaray wadanka Qatar waxaana ay Somaliland sheegtay in Qatar ay ka xiratay badda, dhulka iyo cirkaba. Go'aanka Soomaaliya ay ka qaadatay xiisadda Qatar ayaa waxa uu dhaliyay in dawladda Soomaaliya loo diido dhaqaale hore Sacuudigu ugu qoondeeyay. Sidoo kalena go'aankan ayaa xataa saameyn ku yeeshay arday Soomaaliya oo Soomaaliya ku matalayay tartanka Quraanka Kariimka oo lagu qabtay wadanka Imaaraadka Carabta kaas oo laga saaray tartankaasi isla markaasna loo mastaafuriyay magaalada Hargeysa. Maalmo kadibna Ismaaciil Cumar Madar waxa uu casuumad u fidisay dawladda Qatar oo dalkeeda ku soo dhaweysay. Somaliland waxay ku sabaysay go'aanka ay ku taageertay Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta si ay u sii xoojiso cilaaqaadka ka dhaxeeya iyada iyo wadamadaasi. Madaxweyne Silaanya hadda waxa uu boqosho ku joogaa Imaaraadka Carabta inkastoo safarkaasi lagu sheegay mid gaar ah. haddaba barnaamijka ra'yiga dadweynaha toddobaadkan waxaanu shacabka ku nool magaalada Hargeysa weydiinay aragtidooda la xidhiidha saameynta ay Somaliland ku keeni karto go'aanka ay ka qaadatay khilaafka wadamada Khaliijka faa'iido iyo khasaaraba. magacayga waxa la yiraahdaa Cabdi Ciise Kabale ay arigaas oo aragtay arka waxaan arkaa in arrinkaasi dan ay ugu jirto Somaliland sababtoo ah Soomaaliya waa dal curdina oo soo koraya marka inay taageerto damba ugu jirta Somaliland waxay noqon kartaa xoolaha loo furo Soomaad garan waayo ictiraaf loo yimaada waayo waxaan maqlay maalmo dhaweyso in la yiri Soomaaliya soo xaji karto baasaboorkeed kuma soo xaji karto laakiin Somaliland way soo xaji kartaa iyadoo ku soo xajisa baasaboorkeedii Somaliland ay samaysatay ay ku soo xaji karto laakiin Soomaaliya way ku joojisay xajkii marka inaga dab ay lagu jirto halka waliya waxay nooga soo muuqday in la inagu ictiraafo ayay nooga soo muuqata aniga fikraan waxaan aaminsanahay go'aanka Somaliland ka qaadatay xurgufdanka ama khilaafka soo kala dhaxgalay dawladaha Khaliijka inay tahay go'aan ay xukuumadda Somaliland ku degdegtay sababahan sheegayna waxa kamid ah Carabtu iyaga si keen xigta iyaga xuduud wadaaga iyaga dhaqaale wadaaga iyaga siyaasad wadaaga waxa fiicnaan lahayd go'aanka ay ka qaadatay dawladda Soomaaliya iyo dawlado fara badan inaynu qaadano oo ahayd inaynu dhexdhexaad ahaano inaga waxaan filaynaa madaxdeena sababta u geenaysa waxa weeyaan mashruucii DB Well baa ka xirmaya haddii taageer waayaan waayo meesha wax yar bay ku qaataano dufanka yar ay ku qaadanayaan ay madaxdeenu waayaysa marka waxa kala dhibta kala jirta waxa weeyaan haddii Soomaaliya la yiraahdo wadadii jannaday martay Somaliland waxa hore soo tanaarta marayaayo Soomaaliya ka soo horjeed iskeed wuxuu geenaya inuu mar walba jar ka dhacno waxaan aanu xukuumadda Somaliland kula talinaya oo oranaya oo u soo jeedinaya go'aanka waynu ku degdegnay dawladaha Carabtu maanta hadii heshiiyaan Somaliland iyo Qatar maxay dhexyaalaan waxaynu ogsoonahay abaarihii ugu darnaa ee Somaliland ka dhacay dawladaha Carabtu waxay keeneen way yarad hay'adaha khayriga ugu faraha badan leh waxay noo keenay dawladda Qatar marka waxaan leeyahay xukuumadda Somaliland u soo jeedinaya go'aankaas wuxuu noqday go'aan lagu degdegay hadhowtona inuu arki doonaa midhaha xun ayaan ka goosano waxay ahaydeen inuu dhexdhexaad ka noqono Gariye Salaaman Jaamac waxaan arday ka tirsan jaamacadda Golis fakalka civil engineering haddaan fikirkeyga ka dhiibto Somaliland go'aanka ku saxsanayd sababtoo ah xulafada Sacuudiga hogaaminayo Imaaraadka ku jiro waxay naga dhaxeeyay xiriir ganacsi iyo xiriir iskaashi Imaaraadka wadagto DB Well iyo saldhigga military ayaa naga dhaxeeyay isaga qudhiisa Sacuudiga xoolihii ma dhoofina ishan dhaqaalaha ku tiirsan marka waxaan oran lahaa go'aankaasi waa go'aan geesnimo leh aad iyo aad baan ugu taageersanahay xukuumadda madaxweynaha Axmed Maxamed Silaay magacayga waxa la yiraahdaa Qaadir Guuleed Saciid haddii aan ka hadlo
موضوعا كسعسان سياسة بركة دحية عربتا ودحية أنا واحد همسنا إنا سمعنا لا دحات كنا قطو ويو ودما عربتو أيجا إيسك كان حاجة أيجا أنا وأنا ساعة ودما أي كده حيث سياسته بدأنا نقول سمعنا أن هاي ودنا عردنا على قنصرين يعني دحات دحات كنا قطع أيه حكومة جمهورية سمعنا ما دام أي أنه هاي تطلع عردنا سوى كوريا أنا نقول همسنا إن دحات كنا قطع جمهورية سمعنا بس فكر كيف همسنا مقعنا هذا سعيد بالهذا وحيلات الخليج كيو سمعنا waxdoon hoos ugu jira ma jiraan nin tagayo ka soo shaahaya uu badan ugu jirtay dadkan iyagu bada shaqooyinka iyo waxyaabaha doondoonaya dadana ugu ma jirto maadaama aan lahayn waxa laydinka baahayo laydin geliyo laydin shaqo geenaya dadana ugu ma jirto nin ka soo shaahaya uu badan ugu jirta waxbadan oo ugu jira ma jiraan bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waxa la yahay Jaamac Axmed Cashuur runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa barnaamijkan aad wadaan inagu waxaanu nahay dawlad islaama kuna xidhan khaliijka gaar ahaan dawladaha sunniga islaamka boqolkiiba boqol waxaanu taageersan fikir ahaan fikirka dawladdu ay ku taageertay Sacuudiga iyo xulafadiisa faa'iidada waxa ka dhalan kara horta waxa weeyaan xiriir toos ah waxaynu inagu la leenahay total ahaan dawladahan khaliijka ee Imaaraadka iyo Sacuudiga وتاسو دينغا وينو فايدو وحرير كيني توسكا aynu la lahayn haday ganacsi tahay iyo haday xiriir diblomaasiyadeed tahay de taasa inaga aynu xiriir la leeyahay marka boqolkiiba boqol anu waxaan aaminsanahay fikirka Sacuudiga sunnigana waynu nahay oo dawlad sunniyana waynu marka adduunku istaageerayo waxba la kala iibsada waxaanu doonaynaa inaynu khaliijka iyo dawladaha carbeed ee aynu taageernay harana waxbaanu u tabanayn oo waxyaabo horaanu tirsanayn kuwa aan taageerin bay inaga jecel yihiin waxaanu leenahay xukuumada arinta nooga wakiila dhulka waana ku taageersanahay laakiin waxaanu leenahay baasaboor yar sida Itoobiya oo aan ictiraaf la soconin hadda ictiraaf ma rabno baasaboorkeena aan ka iibsano hoosana loogu dhufto bangigan aan ag taagahayna $2 bilyan iyaga wax ka soo iibsanay hal ay noo dhigo سفير يرو هوسرة هذا اعتراف معها هوس هلا ينقو كانوا وحنا دمي هذا وينقول نوان تاجر سنة هاي أن وحكلا يبسنو يبكي وحكو يبسن إنها عدا طبعا لما ماشى وحكاله لأنه أنت صار راعين يعني مكملش ولا قبض هنايني تكده بربروات تلا وريتشي يدنا خليج كاي هاي ولي باسابور كانوا حنوصلنا يلا يقوموا دفنية غيره تكدينا ولي وحلقوا مضارين وحنا ولا وريتشي كان سؤال أبا وحيله يساعد ضمبي dadku markaynu wax kala iibsanayno inaga saad dambe ay noqonine siday waxeena gacanta ugu dhigayaan inaguna waxeena daan gacanta ugu adduunka waxba kala faa'iidayaay haddaan xaggaada ka eego oran maayo waxa laga yaabaa inaan wax diidanahay laakiin tani siyaasad aniga ila qunbay hada wixii aynu iibsanaynay aan iibsano wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin magacaygu waa Cabdinaasir Muuse Axmed ka tirsan dhalinyarada reer Hargeysa kulay qodobada laga hadlayo waa khaliijka iyo diblomaasiyadda siyaasadeed soo kala dhax gashay qadar iyo carabta kulay marka doonayso ama go'aanka doonayso inaad qaadato interest baa jira dhaqaalaha marka doonayso inaad bedesho interest baa lagu bedelaa Somaliland si way taageertay waa sax waan taageerinaa waa sax waan ku ajiibinaa waa sax xukuumadda laakiin xukuumaddu waxay qorshe بلان إني سميسات وايد قرن كان دمها إن لبوا وسير أما سدح وسير إن طلعوا جوي هذا السعودي العربي اللي هذا دم معي أرنتي ومدن إنك هكتلنا يا وحويا مدح ملك صار سؤال تابته هورت مجلس كو مدحوينه واحد هيدين ودربه تيم يصيرون دربه أو ككوبن أو ميكسدا أو ككوبن هاي حكومته قلها برلمان كا قلها جورتدا قلها دنيا يقويها كقيبة كردوري برشة حتى نقطع المودين كو waxaan noqonaysaa diblomaasiyadda siyaasadda Soomaaliya waxay taageertay Qatar hal wajiib ku taageertay ama hal focus ku taageertay waayo inta ugu badan militariga ugu weynaa waxa bixinaya ama waxa maxay kharash gareynaya hay dawladda Turkiga waxay ka leedahay faa'iido magaaladan Muqdisho ama magaaladan walaalaheenan aan kala go'nay kow waxay markaa madaxweynaha Soomaaliya waxa uu telefoon gareeyay Tayyip Erdogan oo yiri xageed siyaasadda xageed u dheeliday wuxuu ku taageeray Qatar baan raacay Qatar buu soo dabagalay inaga Somaliland baan nahay Somaliland 750 sanadood bay ka joogtaa maanta maalintii ay sida habaqda ugu dhacday godka cidlada waxaan rajaynaynaa in masiirka ummadda marka laga talinayo in jandayaal iyo doodo inta ka waaweyn in la keenaa koonaas kow maanta
qorshaha la siinayo qorshada personal interest ma aha qorshe national ma aha maqrunta in hay'adda isku doonayo waxaan doonaynaa qorshuhu waa inuu noqdo national waa inuu noqdo waa in la baalaariya waa in gobol heer caalami la gaarsiyo waa in gobolladoo dhan ka soo qayb karaan waa in dhalinyarada aqoon-yahanka jaamacadaha 20,000 iyo sayidka maanta dhaafaya waa in doodaha uga la dhageystaadii waxaan rajaynayaa markaan doonay inaan wax ka wareysano koow waa in la siiyaa maasaboorka Somaliland waa in maasaboorka Somaliland la wadaan socdaalka loo ogolaadaa koow waa in qaybta caafimaadka loo ogolaadaa waa in waxbarashadka loo ogolaadaa laba waa in xoolihii Soomaalida ee maanta aad moodooyin containerka lagu xidhay Ethiopia shalay 40 milyan oo neef oo ariya ay ka dalbanaysay Carabiga maxraj gooniya laga sameeyay taasi waxa weeye waa policy arrimaha foreign policy arrimaha dibadda Soomaaliland waxba lama tagi horta meesha waa barka koobaad waa in xoolaha Soomaalida gaar ahaan Soomaaliland xoolaheega waa in wada laga qaadahay waa in la inoo baahan yahay qodobka saddexaad waa in heer caalami wakiil waa in la inoo sameeyaa oo Somaliland maanta waa arkay Qatar maxay Turkiga waa basaas kan meesha nagu yaala wax faction oo qabta ma jirtadii hay'adda runta Muqdisho hadda soo fangareysa Muqdisho marka kala yeeriyo u muuqata waxa weeye Saudi Arabia waa in saddexda qodob inoo fulisa inta haday furin weydo waxa weeyaan inagu horta waan soconaynaa ama Arab hay hor joogsato ama National Union ka hor joogsadaan ama Africa Congress ka hor joogsato ama Soomaaliya hor joogsato horta qarankan waa soconaya waayo kumanaan ku xiriyaamay kumanaan ku dhintay in rubuc milyan baa naftooda u seegay waxaan rajaynayaa go'aanka ay xukuumaddu qaadatay madaxweynahana waxaan doonaynaa in mar labaad aan madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa haddaan nahay dhalinyarada mar labaad waxaan ka codsanaynaa message kan u dirnaa wax weyn madaxweyne dadkani adigay 50% adigay ku doorteen adigay electionka adigay ku siiyeen mustaqbalkooda ka dhaxarkeen maalintii aad caaridisay maalintii habeen aad ordisay ee lahayd kulmiyaan musharax u ahay maanta mar labaad kulmiye waa musharax waxaan doonaynaa madaxweyne inaad dadkan aad hoos yaacay in kartaada qaadanay in go'aanka qaranka la qaadanay in waxaan doonaynaa adigu aad go'aanka adigu ummadan masiirka ummadda adiga kugu aamintay adigana ilaahay kala xisaabtamaya waxaan rajaynaynaa inaad go'aanka ku geesinimada ka qaadato oo ummadan u anfaca inaad ka qaataan rajaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بالله المترجم بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق والسعديد أحمد مقعيق والسعديد أحمد دكتور نوردين سكندري سكول كنت أتانك هذا النقطة بكون مهم كهاي كسابسن أن قوانك كقاعدة جمهورية الصومال لأن أنت قدر إياه سعودية أنت وحيدنا كل كور رساء لو ميل ضيو قوانك إنه أن قوانك أنت إننا قاعدنا إنه خيال أنه وضطش أو جودهان بشدة الصومال لأن قويهان كسياسيين culimada dhalinyarada dhammaan go'aan loo dhahay inaan ka wada qaadano oo runtii laga wada fariisto oo uu noqdo go'aanku mid midho dhala oo runtii aynu faa'iideena iyo danteena aynu ka dhaxeegano laana caalamku maanta ku wada shaqeynaa waa interest waxaan u leeyahay siyaasaddeena arrimaha dibadda in aad loo xoojiyo siyaasaddeena arrimaha dibadda in aad loo xoojiyo oo runtii la hormariyo oo aynu noqono mid la tartamaysa caalamka oo runtii la socota oo interestkooda iyo interestka dalkani leeyahay كاديك عالم جيس لاقي جيس قوان كان رنتي روحنا كانوا متصحة أو ده إنه وعن حرير لنا حي طلعك عربته سعودي جاي إمارات عربته رنتي أن لنا حريرين عول باله ما حمينا قوان كقاعدنا قريب استجنا لكن وحلنا إنه بالوح من لا بلشنا هلو جب بدلو قوان كقاعدة جمهوري قوان كمدحوينا قرن كقاعدة أرنت عربته وحلنا قرن كوح من لا أو رنتي في عيدو كينيا هلوgu bedelo assalaamu calaykum waxaan ahay rooda cali cilmi suldaan marka waxaan walaalahayga muslimiinta u sheegayaa inuu sacuudigu walaalkeen yahay idinkoona maal eegayn sababta aan anigoo dumara u garanayana dhagaxa nabiga waxa ku aasan rasuulkeena maalka waan helaynaa laakiin waa inaan la safanaa sacuudiga muslimnimadeennuna ay raacdaa dadka islaamka maal waan heli doonaa inaga danteena waxaan ku xajinaa waa sacuudigan xajka dadkeenu tagaan waxaan u baahanahay had iyo jeer ilaahay maal wa ilaahay bayna siin doona dadkeenu waa qani abaara badan bay nagu dhacay abaarahana ilaahay bay naga dulqaadi kara waxaanan inii sheegayaa walaalahayga Soomaaliland inaanay inagu aynan noqon dad taageera laakiin waa inaan dhagaxa nabiga inagu taageerna raacnaana rasuulkeena barakadana way inoo iman doontaa ilaahayna wuu ina siinaya haraacina gadar waa dad kamid Caraba Sacuudiga waxa ka soo jeeda istafirti nabi Maxamed ducay noogu jirta qof walba oo muslina waa inuu Sacuudiga taageeraa sababta aanu leeyahay anigoo dumara inaga quraanka Sacuudiga la inaga baray diintu waxay naga timid Sacuudiga
dhulkeenni roobab la'aan baa ka dhacday caruurteenni way wada qaxday waxaas oo idil waxaan inii sheegayaa inuu wax walba ilaahay janno ugu bedeli doono dadka muslimka waa inaad masaajideenna sacuudiga la socotaa dhib walba inagu dhacdo ugu samra ilaahay darteed nabi maxamed darteed maxamed sayid maxamuud jineer xiray imika waxaan ka qalin jabinaya jaamacadda alfa fakalka sifir jinaarin anigu waxaan taageersanaya horta haddee qadarna waxaan ku taageersanay basic needska ayaa mar walba horta priority-ga la saaraa dee xajka dee ummadda islaamka oo dhan baa la dee ummadda islaamka halo qofna looma diidanaa urdugaan baa ka hadlay madaxweynaha turkiga dee waayo qofna lagama hor istaagi karo kabcadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaan leeyahay dee horta in dowladdeennanu qaadato maaha wax degdega oo ay tiraahdo waxaan ku taageerayaa sacuudiga waxay kow iyo laba horta dee waxa ugu wanaagsan ee waddan ku horimaraa ay ka faa'idi lahayd qadar basic needska biyihii waxbarashadii caafimaadka kuwaasoo ku salaysan mujtamaca dee in haddaa basic needskaas la eego inay waddankaas develop oo horumaraya mar kasta sacuudi dee waxbay nooma hayo waa kii naga joojiyey xoolaheennii dee saa inoo galay markaa wax sacuudi ma lihi dee xajkaas waad ka hor istaagaysay laakiin inuu madaxweynuhu go'aankaa uu qaatay inuu ka fikirayo dee combine sameeyo oo isbarbar dhigu dee labada faa'iido labada wadan ay noo leeyihiin inuu ka fikirayo assalaamu calaykum waraxmatullahi go'aanka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku taageeray dalka Sacuudiga iyo Masar iyo wax weeyaan iyo Imaaraadka wadamadaas oo dhaqaalaheenu toos ugu xidhan yahay 90% dhaqaalaheenu wuxuu ku xidhan yahay wadanka Imaaraadka oo wax walba inooga yimaadaan Sacuudigana waa kii xoolaha naga joojiyay markaa wada hadalaynay noo socda baa jira markaa waxaan leeyahay Sacuudigu taageerada aan taageernay waa inuu isaguna xoolaha inoo furaa oo siyaasadda la sii furfuraa arrimaha dibadda oo la daba galaa aad iyo aad baan u taageersanahay go'aanka soo dadka taageeraya go'aanka xukuumaddu ay ku taageertay wadamada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ee qadar kaga soo horjeestay intooda badan waxay rajeynayaan ama ay naawilayaan in marun wadanka Sacuudigu dib u furo xoolihii Soomaalida haddaba saan arrinkaasi ama dadkaasi dareenkooda u ogaano ayaa waxaanu booqanay seylada xoolaha lagu kala iibsada ee magaalada Hargeysa kaysa guura jaama xooluhu way u baahan yihiin in la furo arafadina way soo dhowdahay xoolihiina imika way naaxayaan waynu ilaahay baynu ka rajaynaynaa inay loo furanto in dib loo furo arafada inta ka soo horeysaba ayaan rajaynaya waana ku taageersanaa wadanka magacaygu waxa Ali Maxamed Yuusuf Aldheere xukuumaddu wixii go'aanay gaadho shacbiyanaha iyo danbaa ugu jirta iyo dalkaba laga horiman maayo xukuumadda xagga xoolaha ilaahay baa furaya waxaanu ku ducaysanaynaa dee ciddii uu soo diray isaga yaqaana ilaahay cid loo keeno awood ilaahay baa iska leh qof bilaadan awood ma jiro marka ciddii uu soo dirayo ilaahay baan weydiisanaynaa ilaahay keeno aniga Axmed baa la yidhaahaa sayladana waan joogaa dadka saylada joogaane Sacuudiga ma rabno ma doonayno muslim oo dhan oo baynakee muslim oo dhan buu naceebiyey waxba inooguma jiraan waa laga raystay wakaa marka waxaan leenahay xagga xoolaha waxba ugama baahnin suuq dhaqaalaha waanu haysanaa wax alla waxaanu Sacuudiga uga baahannahay ma jirto haddaan xaramkaasi meeshiisa ahayna xaggiisaba umaanan jeesanin marka waxa weeyaan dadku waxa weeye waanu isku filannahay ilaahay baa wax nagu filanna siiyey xoolahayagii way sii qaaligaroobeen hawa 200 baa lanaga siin jiray iminkana 800 iyo malyan baan laga siisaa wanka weyne wanaagsan yaa marka xoolahayaguba Soomaaliland baan ku filayn iska daa meel kale anigoo magacaygu yahay Marwe Haruun Aadan kana mid ah dadka ganacsatada xoolaha nool ee saylada Hargeysa waxaan ka warramayaa bulshada dadka dawladda Soomaaliland inay ku taageertay oo ay raacday markii la isqabsaday Imaaraadka waxa weeyaan anigu waxa Sacuudiga ka filayaa ma jirto cadaadin xoog leh ayuu ku hayaa annaga xoolaha iyaga nool annaga wax mustaqbal inooguma jiro Sacuudiga haday taageerinayaan hadana taageerin toona waayo sababtoo annaga qadar taayma ka xiitaa la cadaadinayo ayaa dan noogu jirto naga iibsata awrta waaweyn naga iibsata xoolo badan naga iibsata dibida waaweyn naga iibsata taas annaga dan noogu jirta Jabuuti inta noo jirta la jaarka baa noo dhaanta annaga imka Sacuudiga la siiyay dekada berbera lagu caawiyay ee ay Soomaaliland iska dhaadhicinayso marka waxa weeye wax dana anigu kamalihi imana muuqato igumana jirto markii uu Sacuudiga qaadanayay iyo marka imka anigu aanu sidan u iibsanay imka noo qaalisan yahay
yaman oo lagu sheego dawlad faqiira ayaa maalin walba marshacay naga iibsataa laba madaqadood yahay noogana lacag badan marka kulay haddii wax naga iibsadana madaqada u hoosaysuun bay haayeen wax dan inooguma jirto annaga Sacuudiga Axmed Maxamed Jaamac xaajiga dan inooguma jirto Sacuudiga maxuu naga iibsadaa annaka haddaan dadka islaamka nahay feebar nooma hayo Mareykanka buu saldhig ka siiyay dalkiisa annaka ma doonayno bismillaahi alxamdulilaahi rabbil caalamiin wa bihi nastaciin ala umuuri dunya wa diin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad magacayga waxa la yiraahdaa aadan geela cawad su'aasha aan weydiiseen Sacuudiga iyo Qatar iyo inaku dad islaamaynu nahay magac carbeedna waynu wada wadaagnaa islaamnimadana waynu wada dhaqankana waynu wada wadaagnaa qadiyada taala maaha ariga ma leedinka iibsanaya iyo ma idinka iibsan maayo waxa weeye waxay isku hayaan inaynu dhexdooda gallo ka khaldan qabano assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu qadiyada carbeed ee ka dhacaysa caalamul arab waxa wanaagsan dhexdhexaad aynu ka gallo maxamed bulbul waxaan joogaa seelada magaalada Hargeysa haddii aan raygayga ka cabiro saameynta aynu ku yeelan karno taageerada aan Sacuudiga taageerayno waxay la tahay horta xoolaha ayaanu Sacuudiga macaamilaad ku lahayn hadii goorna waxaad moodaa Sacuudigu inuu dadka sunniga dhinaca cadaadis kaga hayo xoolihii waan ugu yaraadeen bay imika xoolo badan oo aanu Sacuudiga macaamilaad ku lahayn ma haynabe annagaba qariir ku daydeynay waxaan leenahay Sacuudigu dadka sunniga ah il gaar ah ku eego wuxuu joogaa meeshii barakaysnayd hadib ciyaarimaha siyaasadda dibadda gadar oo kale markaan imika eegno wadad islaama wadad sunniya wadad magaranaysaay wallahi ma taageersani culayska u saaray ma taageersani walba shakhsi baan ma taageersani go'aanka Soomaaliland dawladdu horta waa dawlad yar oo ictiraaf raadisa cid kastoo ay ictiraafka danka moodana way taageeraysaa marka taageeradeeda madaxweynuhu taageeray